kulanti wacan wanaagsan qayaarta awada naga daawanaysa ku soo dhawaada warka raadiyo wadaag qodobada aad ku daawan doontaana waxa ka mid noqonaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre oo maanta daafuray imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo sheegay guulaha ciidamada dawladda Soomaaliya ay gaareen dadka ka soo horjeedo in ay taageeraan dagaalyahanada al-shabaab ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo dhagax dhigay dhismo cusub ee dhawaan ay degi doonaan hay'adaha dawladda qaar kamida ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo howlgal ka sameeyay qaybo kamida gobolka Galgaduud dawladda Soomaaliya oo ka hadashay go'aan dhawaan ay gaareen midowga Afrika qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka raadiyo wadaag ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo maanta daafuray imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad qodobkan waxaa soo koobaya wariyaheena Maxamed Cusmaan Nuur Golden ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre ayaa furay imtixaanka dugsiyada sare ee 2023 ilaa 2024 oo sanadkan ay ka qayb galayaan in ka badan 37,000 oo arday ra'iisul wasaaraha ayaa ku bogaadiyay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare siday u horumarisay habka loo qaadayo imtixaanka oo laga dhigay mid casri ah isagoo xusay in waxbarashadu ay tahay mid kamida waxyaabaha mudnaanta u leh xukuumadda dan qaran wasiirka waxbarashada Soomaaliya Faarax Sheekh Cabduqaadir oo furitaanka imtixaanka shahaadiga ka hadlay ayaa sheegay in wasaaradda ay sanadkan soo kordhisay waxyaabo badan oo lagu horumarinayo qaadista imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare isagoo sheegay in dalka oo dhan si siman maanta looga wada galay waa ilaahay mahadiis inaan maanta joogno furitaankii imtixaanka dugsiga sare ee fasalka 12aad oo maanta ka dhacayo gobolada dalka intooda badan iyadoo wax badan lagu soo kordhiyay sida uu sanadkii hore ahaa marka la eego tirada ka qaybgalayaasha oo sanadkan gaartay 37,038 arday tirada xarumaha oo 136 ah tirada dugsiyada ka qaybgalay oo 736 dugsi ah tirada shaqaalaha kormeerayo imtixaanka oo maamulayo oo 2,870 ah iyo tirada ciidanka booliiska ee ka howlgalaya amniga iyo ilaalinta imtixaanka oo 2,176 ah ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa dhinaciisa intaasi ku daray in sanadkan lagu qaadayo imtixaanka magaalooyin kala duwan oo aysan horay uga dhici jirin taasoo xaqiijinaysa guulaha la gaaray ee fursadda u ah ardayda wuxuuna kula dardaarmay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed in gacan lagu siiyo wasaaradda waxbarashada iyo ciidanka amniga sidii imtixaanku uu ugu soo dhamaan lahaa si guula waxaan marka koobaad ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa tacaala oo inoo suurtageliyay si nabada inay saaka ay ku furmaan xarumahaas faraha badan ee 136 ee xarumaha maanta imtixaanaadka ay ka socdaan iyadoo oo dugsiyo fara badan oo gaaraya ilaa 736 dugsi ay ka qayb qaadanayaan imtixaankaas shaqaale dhan 2,870 ay ka shaqaynayaan ciidan 2,176 askarina ayaguna ay shaqadaas ku jiraan tirada ardaydana la idin sheegay oo 37,038 arday ay maanta imtixaanaadka secondary-ga ay u fadhiyaan waa ilaahay mahadi waana horumar weyn oo ay wasaaraddu ku tallaabsatay waan u mahad celinayaa wasaaradda wasiirka iyo dhammaan wasiiru dawlaha wasiir ku-xigeenka iyo howlwadeennada kale ee ka shaqeeya hawshaan habeen iyo maalin aadna uga shaqeeyay waa u mahad celinaynaa intaa kadib maanta waa maalin weyn waa maalin qaranka muhiim u ah oo ay xaqiiqoobayaan
himilooyin waaweyn oo dalkan uu leeyahay. waxbarashadu waa himilo weyn oo xukuumaddu ay maxaan ku dhahay u aragto sida amniga ay muhiimaddiisa loo siiyey in ay lagama maarmaan tahay in asagana dhinacan kale waxbarashada loo siiyo. marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay shaqadaas soo qabsoontay oo weliba habka casriga ah ku soo qabsoontay oo hadda markaan soo fiirinay runtii xarunta dhexe ee imtixaanaadka iyo sida loo maamulayo iyo habka digitalizationka ee ku socoto aad iyo aad baan ugu farxnay. wax kasta oo information ah oo looga baahan yahay imtixaanaadka ayaa meeshaas diyaar ku ah. waxaan rabnaa in dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan marka inay dareemaan mas'uuliyadaas maalmaha ay imtixaanaadku socdaan in dhammaanteen aan askar u noqono wasaaradda waxbarashada oo aan kala shaqeyno imtixaanaadka. dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel kastoo joogaan inay qayb ka noqdaan imtixaanaadkaas kala shaqeeyaanna wasaaradda loo fududeeyo ardayda iyo howlwadeennada iyo inta ka shaqeynayso oo dhan oo lagu garab istaago ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala. hay-adaha amniga waxaan rajaynaynaa inay oo la farayaa inay amniga sugaan oo ay suurtageliyaan bii'ad iyo environment oo ardaygu si deganaansho ah oo nabad ah oo kalsooni ku jirto oo imtixaanka ku galo. marka waa himilo weyn oo xaqiiqowday. horumar ayaa la gaaray meelo badan oo aysan sanadkii hore inoo suurtoobin inaan imtixaanaadka geyna ayaa la geeyey. arday badan tiro badan oo tii hore aad uga badan ayaa fursad u heshay inay ka qayb qaadato sanadkan. meelo aan la tegi jirin oo markaas mamnuuc ay ka ahayd runtii in imtixaanaad iyo waxbarashaba laga hadlo ayaa maanta imtixaanaadka looga fadhiyaa. marka ayadana ciidamadii geesiyaasha ahaa ee suurtageliyey ee amnigaas sugay ee xoreeyey ee ardayda Soomaaliyeed fursad u siiyey inay waxbarasho helaan oo ay guryahooda ku bartaan oo imtixaanaad ku galaan waa mahadsan yihiin. iyagana waan u mahadcelinaynaa. ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo dhammaan ardayda iyo waalidiinta iyo in alla intii macallimiintoodii kala soo shaqaysay inay heerkan soo gaaraan oo ay soo maraan marxaladaas dheer soo maraan oo ay maanta ay ka qalin jebin doonaan dugsiga sare imtixaanaadkiisana ay hadda u fadhiyaan. waxaan leeyahay hambaliyo meel kastoo joogtaan. waxaan idin rajaynayaa guul. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo si kulul u weeraray dadka ka soo horjeedo guulaha ay gaartay dowladda Soomaaliya. wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo ka qaybgalaya kulan lagu taageerayay guulaha ay gaartay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dadka ka soo horjeeda guulaha dowladdu ay taageeraan dagaalyahanada al-shabaab. Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa si kulul waxa uu weeraray dadka ka soo horjeeda siyaasadda dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. hooyo walba oo Soomaaliyeed oo wiilkeeda ku weyday dagaalka argagixisada lagu ciribtiraayo ha ogaato inaan wiilkeedii ahay oo kumanaan saraakiil oo askar Soomaaliyeed ahna ay wiilasheedii ay yihiin. agoonteena waa korsanaynaa. gabar walba oo wiilkii qabay ka shahiidayna kan naga haro ayaa dumaalayo kuna taageerayo nolosheeda. hooyooyinka iyo dumarka Soomaaliyeed waxaan idinka sugaynaa duco kaliya baahan waa inaad ku soo biirtaan furimaha dagaalka oo aad ragga dagaalamaya caanaha iyo biyaha ka daba qaataan dhaawacoodana baxnaanisaan alalaaskana la daba taagnaataan. waxaan ku wada haminayno waa guul qaran, nabad waarta iyo dalkeena oo ka xoroobo argagixisada iyo nabaddiidka nooc walba oo uu yahay. waxaan rabaa halkan inaan uga diro laba koox inaan uga diro fariin muhiim ah. koox waa kuwa shabaabka jecel, niyadda ka jecel, horumarka qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ku tallaabsanaysana necab.
la jiifa guryaha xanuun aan rajaynayo inaysan ka bogsoon doonin noloshooda sababtoo ah waxaa diiday ummadda Soomaaliyeed inuu shabaab iyo wax la mid ah ay ku hoos noolaadaan waxaa qoryaha qaatay qof walba oo maaragta dareen iyo damiir ku jiro ayaa qoryaha qaatay kaan tagi karinna ducada iyo wax alla wuxuu hantihayay ayuu ku bixiyay dagaalkii 2 sano ka hor teedaan iyo Sooman laga bilaabay maanta wuxuu marayaa aad la socotaan ayal dheer ka shishay gaarigii Muqdisho ka baxo maanta wuxuu toos u tagi karaa Djibouti isagoo dhul xura maray dad ayaa dhibsanayo oo xorriyadda heerkaas la eg shacabka Soomaaliyeed ay ku nooyihiin ka xanuunsan waxaan aragnaa oo baraha bulshada iyo meelaha maaragta looga hadlo doodaha ka furan yihiin ka aragnaa dad dhahayo deegaanadii shabaab ayaa dib wada qabsaday saacadaan aan taaganahay ayal dheer imtixaan gabdho iyo wiilal Soomaaliyeed oo 10 sano ka hor ugu dambeysay inay wax bartaan ayaa ka socda aadan yabaal 700 oo arday ayaa imtixaan ku jirto 16 sano aanan iskuulna arag mid quraanna arag mid baadina arag markay muuqaaladaas ay arkaan way xanuunsanayaan waxay isku dayayaan inay shacabka Soomaaliyeed misliid gareeyaan waxay sheeganayaan qaarkood inay u danaynayaan shacabka Soomaaliyeed ayna ka rajaynayaan inay mas'uuliyad ay u dhiibtaan mustaqbalka dhow waxay dhibsanayaan Soomaaliya markay ku dhacarkaan qaramada madoobay inay fariisatay kursigii soo maaragta 70kii noogu dambeysay inay dib u fariisatay markay arkaan way xanuunsanayaan waxay xanuunsanayaan markay arkaan in Soomaaliya deentii laga cafiyay waxay xanuunsanayaan magaalada Muqdisho oo aan 6 bilood tarax ka dhacaynin markay arkaan way xanuunsanayaan Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo dhagax dhigay dhismo cusub oo ay dhawaan ay degi doonaan qaar kamid ah hay'adaha dawladda Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa dhagax dhigay dhismooyin cusub oo ay yeelan doonaan Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada iyo hay'adaha isgaarsiinta qaranka dhowrista xogta iyo tayadhoorka xarumahan oo dhammaantood lagu dhisayo isku tashi dadweyne ayaa qayb ka ah qorshayaasha xukuumadda Soomaaliya ee dib u dhiska xarumaha dawladda kuwaas oo laga dhisayo wadada Jaaga ee u dhow garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde Ra'iisul Wasaaraha ayaa tilmaamay in dhismayaashani ay qayb ka yihiin dadaalada xukuumadda Soomaaliya ee ugu jirto dib u dhiska xarumaha dawladda si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan adeeg hufan hay'adda NCA iyo hay'adda data protectionka iyo hay'adda tayadhoorka marka afartaas hay'adooda mid wasaarad tahay ayaa insha Allah dhismayaashooda meeshan ayaa laga bilaabi doonaa waxaan rajaynayaa insha Allah durbadiiba inay dhameystirmaan waan u mahadcelinaynaa cidii ka qayb qaadatay oo hawshaas ka shaqeysay wasaaradahaas ama hay'adahaas oo runtii culays badan ka haystay xafiisyada iyo deegaanada ay ku shaqeeyaan ayaa guul ayaan maanta insha Allah meesha aan ka dhagax dhignay marka waa ku faraxsanahay waa un horumarka wadanka ka jira maalinba aan talaabo qaadayno dhinaca horumarka u sii qaadan bay kamid tahay waana guul insha Allah waan u hambalyeynaya hay'adaha maanta meeshan aan uga dhex dhignay dhismayaashooda marka shaqo wanaagsan iyo guul guud ahaan warkii raadiyo wadaag waa naga inta